agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed ayaa maanta magaalada Burco ka furay tababar ku saabsan kobcinta habka macallimiintu wax u dhigaan iyo sida loo maamulo fasalada waxaana tababarka loo qabtay 20 macallin oo ka socday dugsiyada sare ee Laascaanood iyo Dayaxa Maxamed Xasan Maxamed oo ah maamulaha mashruucan SDF kana tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay tababarkan maanta loo bilaabaya waxa ku saabsan yahay habka macallimiinta wax dhigista iyo sida loo maamulo kalaasyada halka waxa joogta macallimiinta dugsiyada sare ee gobolka Sool iyo Sanaag ujeedada tababarka loo qabanayo waxa weeyaan sida macallimiintu ay u heli lahaayeen aqoon ku filan sida ardayda u bar lahaayeen habka wax dhigista iyo kulli aqoonta wax dhigista leh adana waxa noqonaysaa kobcin xagga muxuu ahaa cilmiga aad faro lahaydeen sidii ay halay ku kordhiyo idinku uga faa'iideysan lahaydeen markaas waxaan filayaa tababarkan ka faa'iideysan doono iyo aqoonta la bar doono ee gelin ardayda ama ubadka gacanta ku haysan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool ayaa iyaguna ka hadlay furitaankii tababarkan horta ujeedada tababarada noocan ah ee wasaaraddu ka leedahay waxa weeyaan la hagaajiyay marka tayada waxbarashada xoog waxaan saarnaa ardayga macallinka maaha marka ardayga classka dhex fadhiya ee fasalka inoo fadhiya wuxuu u baahan yahay waxbarasho tayo leh si waxbarasho tayo loo helo isna naftiisu aan ka qaran karo ma faco waxay maraysaa marka maxaa loo baahan yahay kulankan oo kala kamid ah in aqoontiini kor loo qaado tababar la siiyo wax allaala wixii wanaagsanaada waa accumulation of knowledge wax iska daba tagay weeyaa baa excellence iyo wanaagga iyo quality way ku timaadaan tababaradan la idisiinayo hadda iska daba yimaadaan deewaaniga university ka soo baxay jaamacad ka soo baxay bay noqonayaan وبشير حاجي إبراهيم هون كيبل TV برعو.